gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan oo maanta deeq agab kombiyuutar iyo buugaagta sharciga iskugu jirta ku wareejiyay maxkamadaha ku yaala magaalada Tanjawar ee caasimadda Hirshabeelle. deeqdaasi oo uga timid maxkamadda sare ee dowladda Soomaaliya wuxuu deeqdaasi ugu horeyntii ku wareejiyay maxkamadda Racfaanka ee gobolka Shabeellaha. waxaa kaloo meeshaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Axmed Siid oo mahadceliyay maxkamadda sare ee dowladda Soomaaliya. wuxuu kaloo sheegay deeqda la soo gaarsiiyay waxa ay ka kooban tahay. isagoo arrinkaasi ka hadlayana wuxuu yiri arabna deeqdaas oo loogu talagalay aniga aan ka soo wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda sare 27 bisha markay ahayd aan ka soo wareejiyay aniga adigu ku wareejiyo maxkamadda sare ay ugu soo talagashay UNDP ayay qayb ka tahay. waxaa kaloo la jirto 18 buugagta sharciga ah oo isugu jiro habka ciqaabta iyo qaanuunka ciqaabta iyo inta mataqaana muxuu ahaa madaniga iyo habka madaniga ay isugu jiraan. madana gudoomiye waxaan codsanaynaa maadaama hadda shaqaalihii garsoorka ay joogaan inaad guddoonsiisid deeqahaas. dhanka kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan wuxuuna sheegay in horey looga baahnaa dowladda Soomaaliya in ay deeqdan oo kale ay soo gaarsiiso wuuna uga mahadceliyay dowladda. wuxuuna ka codsaday in ay deeqdan iyo deeq lamid ah ay la soo gaaraan. asagoo hadaladiisa watana wuxuu yiri maanta maartay deeqdan nooga timid maxkamadda sare haddii aaleed maartay kombiyuutarada iyo haddii aaleed maartay sharcigii buugaagtii sharcigii ku qoray oo lagu dhaqi lahay nidaamkii maxkamadda ay maartay ku shaqay lahayd. aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maxkamadda sare walow aan dhihi karno maartay soo ma dhaqsan laakiin hadda waa bilaaban ka haynaa. mar hore inay maartay intaan ka badan oo keenan ay ahayd si aan maartay loo tayeeyo maartay maxkamadda gobolka. maxkamadda gobolka waxay ku shaqeeyay duruufo aad u fara badan, duruufo aad u adag ay ku shaqeeysay. run ahaantiina maartay duruufahaas hadda iyo hay'adday ku xiraayeen maxkamadda sare iyo garsoorka ay ahayd. waxaan leenahay kulli ayagana gacantooda wax ka maqnaay ma hadday ku jiri lahayd mar hore inaan soo gaarsiin lahaydaan aan maartay aaminsanahay. haddana waa uga mahadcelinaynaa inta ay noo keeneen in ka badanna waa ku sugaynaa intaan kaliya maahan. waxaan ka rajaynaynaa inay maartay kombiyuutarada ay soo dhiibtay iyo maartay buugaagta sharciga ku qoran ay soo dhiibeenba miisas fiican oo lagu akhriyay iyo miisas fiican oo la saaraysan lahayn ay ka soo hormarin. marka waa ka xunna horta in miisaska soo hormaray aan isku soo daranayeen. xafiiskan aan joogno Rafcaanka hadda gudoomiyaha joogiyo sidaan u qoraxsan waxaa qalabiyay gobolka. marka anaga dadaalkeena xafiiska gudoomiyaha Racfaanka maadaama asiga laga soo bilaabayo asigaan dhaafi weyno moogta laakiin labada kale inay soo qalabiyaan ayaga ay maartay gobolkii degmadii sidoo kale u qorxan ay maartay gaarsiiyaan. haddii ay maartay intaan ay nooga sintaan kulli anaga dadaali doono gaarsiin doono haddii Ilaahay yiraahdo oo inaan maartay xafiisadeena qoraxsano iyo meelaha lagu shaqeeyahay anaga ay maartay nala ka rabaa. ayagana waa kaashayna wax alaal wixii nooga yimaado haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa khayr badan iyo intaan in ka badan waa ka rajaynaynaa. kombiyuutarada ay noo keeneen waa qalab loo baahnay iyo dhammaan maartay buugaagtaba waana maartay uga mahadcelinaynaa dareenka wanaagsan iyo shaqada hadda bilowga. waxaan rajaynaynaa inay maartay intaas waa maartay canaan iyo xasuusin way maahane waa ognahay inay gacanteeda hadday wax ku jiraan inay intaan ka badan ay keeni lahaayeen. haddana waan ka sugaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo bilow fiican waaye bilow baraka Allah nooga dhigo. bilowga maartay noo bilowdana maartay waxaan uga rajaynaynaa maxkamadduna inay maartay ayaguna ku dadaalaan qalabka. Soomaalidu waxay caado ka dhigataa wuxuu hadday maartay dawlad leedahay lama kala laha camal loogu dhiila qofku lama dhaqaaleeyo lama daryeelo. waxaan ka rajaynaynaa qalabkan lagu wareejihayo maanta adigoo bilow haysan haddii meel bilow lagu siiyo oo meel bilow aad fiican heshay waa inaad maartay waxaaga dhaqaalaysid say wax kale kugu yimaado oo ula sugtid. laakiin haddii wixii la isaga dheelo boor ka buuxsamo qashin ka buuxsamo qad hadday ka go'day iyo maartay inta meel la isaga xooro laga tago dib culus lagu deeyo maalkii oo halaabo hore looga sii socdo
haddana waxaa u naqay meeshaad adoon gaarin meel kale gaarin ay meeshaad u naqaysa. waa markii ugu horeysay maxkamadda sare ee dowladda Soomaaliya ay deeq soo gaarsiiso maxkamadaha ku yaala magaalada Tanjawar ee caasimadda Hirshabelle. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa, Jubba Shabelle News, Jowhar.